السلام عليكم reer wajeer cabdullaahi cabdixirsi baa la yiraahdaa gudoomiyaha waxaan ahay rugta ganacsiga Chamber of Commerce Wajeer County waxaan u jeedinayaa reer wajeer khasuusan dadka qaatay lacagta Mastercard Foundation oo 30,000 lacagta in loo baahan yahay lacagti way daahday 277 ruux baa qaadatay taqriiban 9 milyan يعني soo gaartay maana celinin 550 ruux baa celisay lacagtaas ilaa waqtigan 222 lacagtaas mayna celinin 106 ruux shilinka ma celinin marka aad bay ceeb noogu tahay dad muslimiin baan nahay ribo ma qaadana ribo hadaan qaadanaynin lacagta deentana la siiyo 30,000 aha ood awooday inaan hata maalin kasta 200 shilin aad bixisa hadaad u jeedo maxaynu u bixin laanahay ceeb bay nagu tahay islaamnimo ceeb ku tahay reer wajeernimo ceeb ku tahay tafadal waxaan niga codsanayaa lacagtaas waa loo baahan yahay hal la celiya hadhowtay waxa ka imaan doono in lagu diiwaan geliyo oo lagu geliyo credit reference bureau ko leeyahay CRB oo dadka lacagta deynta qabta lagu daro oo markaad doonato waraaqad masana aad lacag u doonato bangi masameel kale xagga dawladda lagu dhaa CRB waraaqda la imaaw CRB da lima waysana hata shaqo ma helisid marka tafadal waxaan rabaa in aan noqono dad mas'uuliin ah oo wixii ay qaataan in ballanta ay galaan ka soo bixi kara wabillahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم مقعيق وحالي رهدا الشيخ عبد الوهاب وحان كميدة هاي أضياشة أخيارتا كنو المقالة وجير وحان دونا يا هل كان رنتي مركة الرئيسة إن أنا مهد بلارن أن أسوء عليه لمن كمقع عودة ليرادو Mastercard Foundation oo la shaqeeya ma aragtay rugta ganacsiga ama Chamber of Commerce oo wajeer la shaqeeya ninka u madaxda oo la yiraahdo Cabdullaahi Cabdi isagana saasoo kala mahad balaaran ayaan runtii ayaan u celinaynaa dhamaantood sababtana waxay tahay waxaan wada ogsoonahay wajeer inay tahay meel ay ku nool yihiin dad aad iyo aad fuqara u ah ilaahay ma aragtay fakhrinimo zaa'ida ilaahay hanaga qabto waa dad runtii u baahan kaalmo iyo mucaawano iyo ma aragtay nolol dawladeed iyo tu muslim iyo tu ummad kaleba u baahan waay sidaa aawadeed ayaa runtii waqtigii COVID-19 ama cudurka uu meeshan ka dilaacay adduunyada nimanka iyaga ah Chamber of Commerce waxay wajeer siiyeen lacag deen ah ee wajeer keeneen lacagtaana waxay runtii ku amaanan yihiin inay nagu siiyeen interest la'aan oo wax haba yaraate lacagta la kor saartay oo ribo ah inayna jirin deentii sideedii ah yaa faraha nagala saaray oo nala yiri reer wajeer waqti xunna waa lagu jira oo cudurro iyo dhib ay jiraan deentan qaata oo dan yartiina ha ku shaqaysato deenta marka waxay ahayd lacag la yiraahdo revolving fund la yiraahdo ayaa runtii lacagtaasi ay tahay oo ah in lacagta qof uu qaato ku soo shaqaysto danihiisa ku soo guto hadhowna iska soo celiyo markaad soo celiso haddana mid kale walaalka ah iyo haddana lacagtii qaadanay isagana waa ku soo shaqaysanaya danihiisa ku soo gudanaya haddana wuu soo celinaya lacagtu marka inay saas u wareegto oo dhaxdeena ay ku wareegto waa lacag loogu talagalay ribana ma lehe shilin riba wala taana riba oo lagu saaranayna ma laha lafaheedii iska keen yaa la dhehaya runtii waa wax faa'iido aad iyo aad u weyn khayr Allah siiya dadka arinta ka soo shaqeeyay mahad ayay naga mudan yihiin sababta Kenya ma aha wadan
deen aan interest lahayn laga bixinaya maaha. bangiyaasha ku yaala dhulkan oo dhan haddii maanta deen aada u raadsato laazim waxaa inay lacagta ay ku siiyaan lacag kale ay ku kor saaraan oo ribo ah. laakiin chamberga ganacsiga, rugtan ganacsiga, Chamber of Commerce iyo Mastercard Foundation waxay iska ilaaliyeen inay wax ribo la yiraahdo saartaan, ayay iska ilaaliyeen. lacagtii oo deentii ayayna siiyeen, wayna aamineen. deen waad ogtahay shuruudo badan yaa lagu bixiya. shuruudaha badan oo deenta lagu bixina maynana kor saaran. waa inaad qof u yeerto oo ku damaano qaato, ma ayna dhihin waa inaad gurigaaga keentaa ma aragtay title dhiigiisa inaad keento, waa inaad waxaa keento markaasaan deenta ku siinaynaa, waa inuu oday hebel ku damiinto. waxaasoo dhan lama dhihin. war anugu waan gaajeysnahay deena u baahanahay hoo yay ahayd. deen la qaato tii ugu fiicneed ayay runtii ahayd. dad gaaraya sidii uu walaalkeena sheegay ilaa 277 qof yaa lacagtaa qaateen. dadka lacagtaa deenta la siiyey waxay u badan yihiin 90% waa haween. haweenkana waa dadka inta badan aan ku tirino bulshadeeda gudaheeda inay ammaanada uga fiican yihiin ragga ay uga fiican yihiin. waxaa riboodkan uu leeyahay 55 qof keliya ayaa deentaasi bixisay. 277 55 keliya bixisay. 106 wax ay bixiyeen ma jirto. 116 qalana waxay isku dayeen inay deentii wax ka bixiyaan iyay isku dayeen. arrintaa iyada ah aniga waxaan halkan u soo galay ka culimo ahaan iyo inaan haweenka xasuusiyo deenta inay islaamka dhexdiisa khatar aada iyo aada u weyn inay leedahay. khatartaasoo ah mar haddii aada dhimato siduu rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiisku uu ku yidhi qofkii deyn lagu leeyahay oo dhinta naftiisa way xiran tahay, mucallaqatun waa mid ma aragtay xiran oo maxbuus ah ilaa deynta laga bixiyo. sidaasuu rasuulka yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. naftaada maqaamkii la gey lahaa, meeshii karaamaysneed oo la gey lahaa lama geynaayo naftaada ilaa deentii lagu lahaa naftaa iyada laga bixiyo. xataa hadduu qof jihaad ku dhinto sidii riwaayad kale ay sheegayso, kii ugu darnaa oo ku dhinto jannadiisa un ay diyaar tahay laakiin deen lagu leeyahay, ninkaasi jannada hore kama gelaa iyadoo deynta aan laga bixinin. wadaalika waxa deynta la yidhaah waxaan walaalaha muslimiinta aan u sheegaya, walaalahay muslimiinta inay tahay khatar aada iyo aada u daran inay tahay. adduunyadan inta la joogo waxaan ka calacalaynaa biil la-aan iyo xogaa nolosha iyo fakrigaan ka calacalaynaa. laakiin qiyaamo markaad tagto haddiiba lagu haysto deentii iyada ahayd oo laleeyahay waad u xiran tahay, waad u maxbuusan tahay ilaa lagaa bixiyo camalkaagii ma aragtay meelna lagu. waxaan haweenkaasi aan ku leenahay oo aan u sheegaynaa magaca wajeer ha halaynina. nimankan waa niman iska ma aragtay ummado kale iska ah, wayna aamineen deentii bayna siiyeen. haddii aan bixi wayno waxay ilaa Nairobi ilaa Washington waxaa la iskugu sheekeynayaa nimankanu deenta la siiya ma bixiyaan, tu dambana cid ku siinaysa ma jirto, cid damboo deen ku siinaysa ma jirto. annagana waxaan ku doonnaa dadkeena culummada ah, war dadkan deen aan ribo lahayn waa muslimiine, dowladda iyo hay-adaha wax bixiya dadkanu ha siiyeen deen aan ribo lahayn. dadkii haddii deyntii aan ribada lahayn la siiyey oo ayna bixinaynin soo dhibaato inteeda dhan maha. cid markaa wajeer imanaysa oo wax deen dambe siinaysa ma jirto. sababto deentii markii la siiyey ma bixiyaan, buugta lagu qoraya, meel walba lagu qoraya. haddii laakiin tan aan iska bixino malaayiin kalaa imanaysa, laga yaabo 500 milyan lacag gaarayso deena inay imaataa dhici karaysa. county government waa tii bilowday saasoo kale iyadana revolving funkan wakti hore waa tii bilowday. calacalka ugu weyn ee meel walba kasoo yeeraya ilaa lacagtii Oxfam ay bixin jirtay oo hataa Aldef waxay tahay skiimkii deenta oo la hagaajiyay dhibkiisa wuxuu noqday cid lacagtii soo celinaysa malaha. reer wajeerow ilaahay ka cabsada, magaceennana ha ku dheelina, magaca magaaladan iyo ummadan iyo inta dadka degan, tan caruurtiinana halaynina. waxaan ku daraya oo raacinaya lacagtaas waa free iyo dad meelahan ay ku sheekeynayaan. free maaha, ninkii bixiyeyba ma dheeyahay lacagtan waa free, dad baan ka soo qaadu leeyahay. dadkiina waxay fiirinayaan accountiga meeqaa lacagtan soo celisa meeqaana soo celin.
hadduu lacag dheeraada isiya maanta uu yidhaahdo oo reer wajeer abaar baa jirtay, abaar xun yaa socotee, lacag dheeraada isiya oo deen ah, habaas weyne iyo butayaan geynaya oo lacagta dadkii baan siinaya, waktiga roobka ha iska soo celiya hadduu yidhaah tii horaad ma bixin weysaan leh, timirtii horeba dab loo waayo. haddaad tii hore uu bixin waayo see hadda mid kale ku codsanaya ninkan walaalkeena reer wajeerka ah? ma codsan karaan. marka walaalaha waxaan leenahay doonta hanala gedinina laba shay ayaanan isku darsanin, faqri iyo ma aragtay maxay ahayd iyo amaano xumo. aamin ma nihin, aadaab ma qabno, moral values wax la yidhahdo akhlaaqi edabna ma lihin. waxaana leenahay adduunkan ilaahan gacmaha u taagayna, ilaahayow adiga waxna sii, ilaahayow adiga roob noo keen. haddiiba dharka aad xiran tahay, baabuurka aad wadato, guriga aad ku jirto, cuntada aad cunaysaba xaaraan tahay, ilaahay maba kaa aqbalaayo, ducadaada maba aqbalaayo. waa sida xadiis saxiixa ahayd. walidaalika waxaan leenahay dadka khayrka leh ee annaga inayna kaalmeeyaan raba, wixii deen oo aan ka qaadnay reer wajeero waan usoo celino. wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabi wasalam.